بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وما بتاء وألف قد جمع بيتك كوبيا فرتنات أيينك باللابنينا. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى تولد اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفضحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرديف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سما كلم تكوني لترومي مظلما وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا وثاني منقص ونسبه ظهر والرفعه وكذا أيضا يجر بسم الله الرحمن الرحيم. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. waxaynu ka bilaabaynaa beydka koobiya afartanaad, waana waxyaabihii furuucda ahaa ama faraca ahaa. kii afraad ayaynu ka bilaabaynaayo saddex farac baynu soo dhigannay. saddexdii farac ee xarakadii xarafku uu xarakada wakiil ka noqon jiray ayaa inoo soo dhammaaday, sida asmaa'ul khamsihii iyo muhannihii iyo jamicii mudakaru saalim. saddexdaa ayaan soo dhigannay. waxaynu halkan ku arki doonnaa biidni illaahi tacaalaa labadii farac ee xagga asmaada iyagoo ka socda xarakadu ay xarakada wakiilka ka noqonaysay. waa jamac mu'anahu saalim iyo maa laa yansarif. haddaba jamac mu'anahu saalim rafcihiisa niyaaba ma gasho, oo marka la rafcinayo damaa laga rabo, damadii baa degtay. waa asal xagga rafcaha. jarka laftiisa marka laga hadlayo, marka la jerayo kasraa loo baahnaayo, kasradii baa degtay. xaggaana niyaaba ma gelin. rafcaha iyo jarkaba asal buu ka haystaa jamaca mu'anahu saalim. laakiin nasbaha, marka nasbaha la eegayo, ayay ahayd in fadxa lagu nasbiyo. fadxadii waxaa wakiil ka noqday kasro, halkaasay niyaaba ayay ka gashay. saddexda icraab ee jamaca mu'anahu saalim laba asalkii bay ku yimaadeen, waa rafco iyo jer. xabad qura ayaa khilaaful asal noqotay ama farac noqotay, waa nasbo. xarakaana xarako wakiil ka noqotay jamaca mu'anahu saalim iyo mulxaqiisa. kutubta waxaynu ogeyn naxwaha inay inta badan jamac mu'anahu saalim u yaqaaneen. sheekheennani magacaa waa iska daayey, wuxuuna ula baxay magaca loo yaqaan wamaa jumica bialifin wa taa'in masiidatayni. maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn buu yidhi. haddaba maa jumica bialifin wa taa'in markuu leeyahay sheekhu masiidatayn, maa jumicada waxa inaga hadhaya ama sheekhu wuxuu iska ilaalinayaa ereygii saalimka ahaa. saalimkii baa la iska ilaalinayaa. jamac mu'anahu saalim saddex erey buu magacani ka kooban yahay. waa jamac, waa mu'anath, waa saalim. haddaba jamacu isagu waa sax oo baabkani jamacuun buu noqdaa. jamacna wuxuu ahaa saddex iyo wixii ka sii badan. baabkani waa jamacuun
ee ma aha mufrad iyo musanna toona noqon maayo jamac mu'annas ereyga mu'annas markaynu eegno mu'annasku isagu waxa weeye dhadig buu ahaan jiray ama kii dhadiga laga dhigay jamacani mararka qaar buu lab noqdaa oo waxaa la arkay istablun oo xero fardood ah waana lab istablaad baana lagu jamciyaa waxaa kaloo la arkay xamaamaad baa lagu jamciyaa isagoo lab ah kolkaa istablun iyo xamaamun maadaamayna mu'annas ahayn haddana jamacan ay ku yimaadeen sheekhu wuxuu yidhi magacaa mu'annaska ah inaga daaya ereygaa mu'annas ah aynu iska dayno ilayn mu'annas ma wada oho dee istablaatun baa jirte ama xamaamaatun baa jirte jamaca uun baa laysla qiray laakiin mu'annasnimadii baabku wuu u badan yahay waxaa la arkay lab laakiin lagu jamcinayo magaca saddexaad waa saalim waa jamac iyo mu'annas iyo saalim magacaa saalimka ah sheekha laftiisu wuu iska daayey oo wuxuu saalimka u daayey waxaa la arkay isagoo mukasaraa la arkay jamcu tagsiir isagoo ah ayaa la arkay oo tusaale ahaan bintun marka la jamcinayo waa inan waxaa lagu jamciyaa banaatun ereygaa banaatun ihi jamac mu'annasu saalim oo sax a ma aha saalimba ma aha sababta uu saalim u noqon waayeyna dee bintun mufradka markuu yahay ba'da koobaad kasray sidatay bintun nuunkuna reebniin buu sitay banaatun nuunkii fadxuu qaatay ba'diina fadxay qaadatay miyaan tabdiilu shakliga waxa loo yaqaanay lixdii nooc ee jamcu tagsiirka dee tagsiirka ka dhigi jirayba weeyi tabdiilu shakli baa ku dhaco waa tagsiir mukasar weeyi haddaba bintun maadaamoo banaatun lagu jamciyey ukhtunna maadaamoo akhawaatun lagu jamciyey waxaynu aragnaa baabkan inaan saalim la wada odhanaynin oo qaar tagsiirihii uu ku jiro waxaa kaloo tagsiirka loo soo qaadan karaa oo mukasar isagoo alla arkay gurfatun oo qolka ah marka la doonayo in la jamciyo khurafaatun baa lagu jamciyaa gurfa ra'du way reebnayd xilliga jamaca ana fadxay qaadatay khurafaatun dee tagsiir intaasaa ugu filan maalan marka rakcatun la doonayo in la jamciyo rakcatun kaafkaa reeban fadxaa la siiyaa oo waxaa la odhanayaa rakacaatun baa la odhan tagsiir intaasaa ugu filan sheekhu magaca mu'anaskii inuu jabay ayuu arkay magaca saalim ihina inuu jabay ayuu arkay ereygii jamaca ahaa uun baan jabin oo sax ah kolka sheekhu jamicii uunbuu qaatay labadii kale wuu iska daayey maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn magacaa ha loo bixiyo oo casharka ama jamacan mu'anasu saalim magacaa ha loo yaqaano ilan mu'anaskii wuu jabay saalimkiina wuu jabaye ragga magacan qaatay waxay yidhaahdeen war magacan jamac mu'anasu saalim ihi wuxuu laqab u noqday wixii alif iyo ta lagu jamciyo walow yuuna saalimba noqonine saalimba yuuna noqonine ragga qaar waxay yidhaahdeen saalimnimada waxaa looga jeedaa tagsiirkii tabdiilu shakliga ahaa waxa aan ahayn tabdiilu shakliga isaga lama diidana kolka maa jumica bialifin wa taa'in waa shayga jamaca laga dhigay ee jamacnimadana alif iyo ta ay sheegayso alif iyo ta baa jamacnimada sheegaya wuxuu iska ilaalinayaa shayga jamaca laga dhigay ee jamaca siiqo kale ay sheegayso sida rajul oo kale rijaal marka la yidhaha rijaal waa jamac waa mufrad rajul oo la jamciyey alif iyo ta jamacnimada ma sheegayaan ee siiqadan la bedelay ee xarakada la bedelay rajul ra'dii fadxisnayd iyo jiimkii godnaa ee rijaal loogu dhawaaqiyey alifkan la bedelay siiqadanaa wadata jamacnimada kolka waa inay alif iyo ta'du jamacnimada wataan alifka iyo ta'da shardi baa ku xidhan waa masiidatayn labaduba inay ziyaado yihiin waxaa shardigaa inagaga baxay ereyga amwaatun waa jamac mu'anas saalim lama odhanayo hadda alif iyo ta bay ku dhammaatay sababtuna waxa weeye ta'da ku jirta asala amwaatun bal mufradka sheeg waa meyd ereygan meyd ah ta'dani waa asal sidaa darteed jamcu alifkoo qura saa'ida haddaan aragno abyaatun oo beydadkii ah ereyga abyaatunihi maaha jamac mu'anasu saalim sababtuna waxa weeye alifkiiyo ta'dan ziyaado ahayn alifkoo qura ziyaado ah ee abyaatun ta'dani waa asal bal mufradka sheeg beytun ta'dii way ku jirtaa kolka waxaa la doonayaa inuu alifkuna ziyaado noqdo ta'duna ay ziyaado noqoto waxaa kaloo inaga hadhay haddii ay ta'doo quri ziyaado tahay sida ducaatun ama qudaatun oo kale ereyga ducaatun ah waa jamac laakiin jamcu tagsiir ah jamac mu'anasu saalim ma aha alif iyo ta'da uu ku dhammaaday alifku waa zaa'id laakiin ta'du zaa'id ma aha ta'du waa zaa'id baan doonayaa ta'du ducaatun ta'du waa zaa'id laakiin alifku zaa'id ma aha oo ducaatun ficilkiisu dacaa buu ahaa alifkanina waa laamkii
halkaa ayaynu magaca insha allah ku arki doonaa wamaaka qad jumica la jamciyey bitaa'in ta' lagu jamciyey wa alifin bitaa'in bisababi taa'in ta' sababteed lagu jamciyey wa alifin iyo alif sababteedka lagu jamciyey yugsaru waa la kasrin filjari xilliga la jerayo wa fi nasbi iyo xilliga la nasbinayo macan iyo wa maca wuxuu yidhi sheekhu wuxuu yidhi ka alifka iyo ta'da sababtooda jamac lagaga dhigay waa la kasrini marka la jerayo buu yidhi waa yugsaru filjari buu yidhi yugsaru filjari hal xilliga jerka ha la kasriyo buu ina yidhi dee waa niyaaba kasrahaasi haddaba waa naa'ib muxuu kasrahaasi naa'ib iyo wakiil ka yahay fatxihii lagu wa fi nasbida soo socota fatxahaas kasrahaasi waa naa'ib xilliga jerka naa'ib ma aha oo waa asal ee xilliga nasbaha ayuu naa'ib yahay oo fatxo ayuu naa'ib ka yahay culimmadu waxay isweydiiyaan saddexda icraabood ee jamac mu'anasu saalim uu leeyahay waxaynu sheegnay rafcuhu inuu asal yahay miyaa la sheegi haddaba rafcaha sheekhu muu sheegi ilin waa asale halkan ma asal baynu ka warramaynaa mise wixii khilaaful asal ee faraca wixii faraca oo qura ayaan ka warramaynaa oo wuxuu uga aamusayaa waxa asalka ah ama sheekhu asalka wuxuu ugu talagalay inuuna sheegin sababta uu u sheegi la'yahayna beydkii hore ayuu inoogu soo sheegay oo ina lahaa warfac bidammin beydkii warfac bidammin markuu ina lahaa warfac bidammintaa eeg warfac bidammin taasuu ku jiray farfac bidammin wansiban fatxan wajur kasran farfac bidammin kolka jamac mu'anasu saalim in la daminayo xilliga rafcaha asalkii weeye oo farfac bidammin buu ahaa haddaba xilliga jerkana sow asal ma ahayn halkuu ku jiray xilliga jerkana wajuro kasran buu ku jiray jerka inuu ka warramo ma ahayn keliya nasbaha unbaa khilaaful asal ah nasbaho qura inuu sheegay ahayd sheekhu muxuu halkan yidhi yugsaru fi ljari wa fi nasbi yaa haddaba baytulqasiid ah ama maqsuud yaa ahaa wa fi nasbidoo qura ayaa maqsuud ahayd filjari waa asalkii oo xagga horey ku jirtaaye looma baahnayn filjaridaa sheekhu sababtuu jerka u keenay waa maxay wuxuu jerka u keenay maadaamoo nasbaha kasro la siinayo wuxuu is yidhi kasraha faraca ah iyo kasraha asalka ah labadaa isku ag sheeg buu is yidhi kasrihiibuu asal iyo faracnimo labadaba u qiimeeyey kasraha jerka ku jiraa waa asal kasraha mansuubka ku jiraana waa farac munaasabo ka dhaxaysa kasraha uunbuu halkan filjari wa fi nasbi u yidhi laakiin jerka looma baahnayn oo waynu ognahay waxaa kaloo jira ereygan sheekhu yugsaruyo uu yidhi waa erey halkiisii dhacay yugsarudaasi waa erey aad iyo aad u fiican culimmada luqadda naxwaha marka la eego sheekheenna ayaa saxda ku taagan yugsaru markuu yidhi waa la kasrinayaa buu yidhi ereygaa waa la kasrin waa kasro qurun buu inoo sheegay ma og tahay inama odhanin waa la sarfinayaa camridiga oo kale halkan muxuu lahaa wuu ka duwanaa walow maalaayansarifka mas'aladiisu ay ahayd yugsaruda wuxuu ka duway halkuu kasro qura ka odhan lahaa ayuu sarfi qura oo kale ka qaadanayay walow mas'aladu ay baabu tandiir tahay wamaaka qad jumica la jamciyey bitaa'in bisababi taa'in ta' sababteed lagu jamciyey wa alifin alif sababteed lagu jamciyey yugsaru waa la kasrin kaa maksuur baa laga dhigi filjari xilliga jerka ayaa la kasrin wa fi nasbi iyo xilliga nasbaha ayaa la kasrin macan iyagoo mac ah welibana kelmaddaa macan ah culimmada qaar baa yidhi waan fahmi kari la'nahay macantaa horta kow beydku ku buuxsaday oo hadduu macantaa ka tegi lahaa beydkaa jebi lahaa laba waxaa kaloo meeshan yaalla ereyga macan ah laba macno ayaa loo yaqaanaa qole waxay yidhaahdeen macantu waa jamiican bay la macnotoo dhammaan idhahaa weeye qole oo kolkaas zebanka kama hadlayso itixaadu zeban ma sheegayso waa sheekheennan alfiyada qoray siduu qabo kelmadda macan ihi jamiican bay la macno tahay oo itixaadu zaman ma sheegayso mar qura in waxaan la wada samaynayo ma sheegayso sida sheekha thaclab la yidhaah iyo ibnu khaalaweyhi iyo ay qabaanna ereyga macan ihi waxay sheegaysaa itixaadu zaman haddaba kelmaddaa macan ee beydkan ku sheegani cinda naadim waa sax oo macan markuu yidhi waa jamiican
kaana kasraa lagu jeri markuu majruurka yahay markuu mansuubka yahayna kasrun baa lagu jeri walow xilligoogu ha kala duwanaado oo midna xilligii jarka weeyi midna xilligii nasbaha weeyaan xilligii waa kala duwan waa jamiicanuun qolada tidhi haddaba may ee xilligaa isku mid ah kelmaddani khalad bay noqon haddaan majaaz laga dhigin khalad bay noqon macantani oo wuxuu ku moodsiinayaa ereygan jamaca mu'anasu saalim ee banaatin ah ama muslimaatin ah muslimaatin in mar qura kasrihiisu tii jarkana ay noqonayso tii nasbahana ay noqonaysa macan si maciye ah oo wada socda inay kasruhu jar iyo nasbaba ku noqonayso waana khalad cid luqawiyiinta ka tirsanoo sidaa tidhi ma jiro hal kasro oo nasbo iyo jar mar qura kuu wada ah kii oo welibana ictibaarta ay ka midaysan yihiin cid sheegtay oo madhabkaa qaadatay ma jiro kolka ereygaa macan ihi cinda naadim jamiican buu la macno yahay oo itixaadu zaman ma sheegayo cinda thaclab wabni khaalawayhi itixaadu zaman buu sheegayaa oo waxaa lagaga badbaadayaa madhabkooga in majaaz balaaqo laga dhigo macanta majaaz oo tajarud baa dhacay oo itixaadu zamankii baa laga tajriidiyey tajarud baa dhacay ha la yidhaahdo adigu ama xaqiiqo aynu ka dhigno ama majaaz aan ka dhigne ereyga macan ah ee beydkan ku jiraa itixaadu zaman ma sheegayo kasraha jarka iyo kasraha nasbu waa isku kasro inama leh waa laba kasroo kala duwan laba waqtiyoo kala duwan ayuuna ereyga gelayaa beydkaa halkaa ayaynu kaga baxnay tusaalihiisa haddaynu u baahanno waa khalaqa allaahu samaawaati khalaqa allaahu alle ayaa abuuray asamaawaati samaawaadka ilaahay baa abuuray walow samaawaadka qolona waxa inaga sarreeyo o dhan bay same u yaqaaniin qolona jirmigaa madow ee inaga sarreeye albaabada le ee nebi maxamed iyo jibriil uu garaacayey markuu rasuulku la socday ee waa kuma lalahaa kaasaa same loo yaqaanaa haddaba waxaynu u jeednaa ereygaa khalaqa allaahu samaawaati khalaqa waa ficil maadi allaahuna waa faacil marfuuca asamaawaati waa jamac mu'anasu saalim mansuub buu ugu jiraa aayaddaa qur'aanka ah calaamatu nasbihiisu waa kasraha naa'ib wuxuu ka yahay fatxihii waa kasro fatxa naa'ibka ah markaa beydkan culima markaan icraabkiisa eegno maadaasi waa ismi mawsuul ama nakiro mawsuufo ah weeyi waa ismi mawsuul ama nakiro mawsuufo ah bitaa ereyga bitaa ah hamsihii ayaa la xadfay daruuratu shicir baa loo xadfay wamaa bitaa'in buu ahaa wamaa bitaa'in jaar iyo majruur weeyi bitaa'in haddaba wuxuu ku tacalluqayaa jaar iyo majruurka bitaa'in ihi jumicada dambe ayuu ku tacalluqayaa waxaa laga yaabaa in layna yidhaah kelmadda qad a waxa ka dambeeyaa kuma camal feli jirin waxa ka horreeya jumica qad bay ka dambaysaa bitaa'inna qad bay ka horraysaa sidee bay jumica ugu camal fali kartaa wax qadda ka horreeya yaa oggolaaba luqadda xaggeega waxaaynu jawaabta ka dhigaynaa waa run oo arrinkaasi waa jiraye laakiin daruuratu shicir baa keentay sidaa darteed baa bitaa'inta layskaga qadimay wa alifin wuxuu ku cadfan yahay bitaa'inta qad jumica waa ficil maadi alifkani waa liliطlaaq naa'ibu faacilku waa huwa oo maada u noqonaya jumlada qad jumica ee ficilka iyo naa'ibka ah ayaa fii maxalli rafcin sifatu maa ah in kaanat maa nakiratan mawsuufatan bimacnaa shayin ama jumlada jumica ayaa laa maxala lahaa min alicraab ah silatu maa in kaanat masma mawsuulin bimacna aladii wahumaa fii quwati lmushtaq kamaa fi lqaacidati almuqarara taqdiirtu waxay noqonaysaa walmajmuucu ka la jamciyey bialifin alif iyo bitaa'inta iyo wa alifin lagu jamciyey yugsaru waa la kasrin yugsaru waa ficil mudaaric oo majhuula naa'ibu faacilkiisuna waa huwa jumladaa yugsaru ah ee ficilka iyo naa'ibu faacilka ka koobani waa fii maxalli rafcin waana jumla suqro ah khabar bay dhacday maada khabarkeegii jumlada maaduna waa jumlo kubro ah oo khabarkeegii ayaa dee jumlo noqday filjari waa jaar iyo majruur ku xidhmaya yugsaruda wa fi nasbina waa jaar iyo majruur ku cadfan jaar iyo majruurkii ka horreeyey ayuu ku cadfan yahay halkaa sheekha waxaa lagu qabtay oo lagu qabsaday waxaynu nidhi alif iyo ta'du inay zaa'id yihiin buu shardigu ahaa alifka iyo ta'du inay zaa'id yihiin ayuu shardigu ahaa oo waynagii nidhi amwaatun iyo abyaatun iyo ducaatun iyo qudaatun ma aha jamac mu'anasu saalim sababtana qaarna alifka ayaa zaa'ida
oo ta'duunbaa asala amwaatun iyo abyaatun oo kale qaarna alifka ayaa asal ah oo ta'duunbaa zaa'ida sida ducaatun iyo qudaatun oo kale haddaba waxaa la isweydiiyey alifka iyo ta'da muxuu qeydkii ziyaadada ahaa uga jaray wamaa bitaa wa alifin qad jumica qole waxay isku dayeen inay yidhaahdeen gabayga ayaa u qaban waayey oo sidaasuu masiidataynkii uga aamusay waxa ka fiican ba'da bitaa'in ku jirtaa sababiye ah inaynu nidhaa bitaa'in ba'da ku jirtaa waa sababiyo wamaaka qad jumica la jamciyey bitaa'in bisababi taa'in wa alifin jamcu markuu ku xasilayo alif iyo ta sababtood markuu ku xasilayo ee sabab kale uuna ku xasilin alifkaa iyo ta'daasi shardi waaba zaa'iduun haddaba ba'daasoo sababiye laga dhigaa waxay inagaga fillaan qeydkii masiidataynka ahaa oo waxba sheekha la qabsan maayo markaa wamaaka qad jumica la jamciyey bitaa'in bisababi taa'in ta' sababteed lagu jamciyey wa alifin alif sababteed lagu jamciyey yugsaru waa la kasrin filjari xilliga jarka ayaa la kasrin wa fi nasbi xilliga nasbahana waa la kasrin macan si mac ah oo wada jir ah iyagoo ah kolkaa wada jirkaasi waa isku wakhtiyaynaan moodine waa jamiican unbaa loo jeedaa kaana kasraa lagu jeri kaana kasraa lagu nasbin maxalu shaahidkuna waa nasbaha oo qura ee jerka sheekhu munaasabuu ilaalinayaa jamac mu'anahu saalim ama maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn maxaa looga qiyaastaa haddaba 5 qodob oo looga qiyaasto kitaabkeennii ruuxulicraabka ayaynu ku qaadannay kolka waxaynu ardayda u xawaalaynaynaa inaynu 5 qodob ee baabkan looga qiyaasto inaynu kitaabkaa dib ugu noqonno kadaa ulaatu waladi isman qad jucil kaadricaatin fiihidaa aydan qubil wuxuu yidhi kadaa kan waxaa lamida ulaatu ereyga ulaatu abaa lamida ereyga ulaatu waa la mid waladii ka qad jucila laga yeelay isman ismi ka laga yeelay ismigaasi ama calam ha ahaado mudaker leeyahay ama calam ha ahaado mu'anath leeyahay ismi baa laga dhigay intii uu jamaca ahaa kadib adricaad oo kaleba weeye asalkiisu waa jamcu adricatin buu ahaa oo jamcu diraacin ah adricaad calam baa looga dhigay tuulo shaam ku taalla ayaa calam looga dhigay kadib waxaa la icraabayaa jamaca mu'anahu saalim ama maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn wixii la icraabi jiray oo kale ayaa la icraabi wax alle wuxuu kaga duwan yahay haba yaraate ma jiro baa la leeyahay kii unbu laxukun iyo laxeer ayuu noqonayaa wuxuu idhi sheekhu mulxaqii jamaca mu'anahu saalim ama maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn buu ka hadlayaaye kadaa kan waxaa lamida ulaatu ereyga ulaatu abaa lamida kadaa ulaatu ereyga ulaatu oo bimacnaa asxaab ah ama bimacnaa saaxibaat ah bimacnaa saaxibaat waa jamac mu'anahu saalim mulxaqiisii waxay ka dhigan tahay haddaba 3 baab ee icraabka ah 2 ka mida asalkii buu haystaa 2 ka mida asalkii ayuu haystaa xabad ka mida uunbaa khilaaful asal ah oo baabka nasbaha ah halkii fatxa lagaga nasbin lahaa ulaatuda ayaa kasra lagu nasbinayaa oo jamicaa hore ayuu la mid yahay kadaa ismul ishaaraha kadaa ku jiraa ka la ishaarayaa waa maa jumica bialifin wa taa'in kaa alifka iyo ta'da lagu jamciyey waxa la mid ah ulaatu ereyga ulaatu ah wajushabuhu waa halkee ilin kadaa waa kaafkii xarfu tashbiiha ahaa ayaa ku jira iyo mushabbahun bihigii oo daa ah mushabbahuna waa ereyga ulaatu ah wajushabuhu waa halkee ulaatudu halkeebay ka shabbahday ereyga daa ah oo maa jumica bialifin wa taa'in looga jeedo halkeebay ka shabbahday waxay ka shabbahaysaa xagga jarid xagga nasbinta lagu nasbinayo kasraha kadaa kan waxa lamida ulaatu baa lamida oo xageebuu kala mid yahay nasbaha kasraha lagu nasbinayuu kala mid yahay dhinacaa ayuu kala mid noqday waa xabad mulxaq ah maxaa talow mulxaq looga dhigay ereyga ulaatu ah waxa mulxaq looga dhigay oo mulxaqnimadeeda caddaynaya mufrad bayna lahayn baa la yidhi ereygani erey mufrad leh oo mufradkiisu uu dee mufrad jiro oo la macno leh ma jiro bay culimmadu yidhaahdeen ulaatu
waladii qad jucila laga dhigay isman ismi laga dhigay ka adricaatin oo kale weeyaane fiihi dhexdiisa aydane daakan baa qubila la aqbalay halkan wuxuu sheekhu inoo sheegay ereyga haddii ismi laga dhigo isagoo maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn ahaa magac kastoo ismi laga dhigaana wuxuu inoo noqonayaa kanoo kale buu sheekhu yidhi kanuunbuu la xeer iyo la xukun noqon oo ereygii alfaadimaatu la odhan jiray ama alhindaatu ereygii loo yaqaanay haddaad inantaada u bixiso alhindaatu haddaad inantaada ula baxdo jamac ma aha oo maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn ma aha jamcu saddex iyo wixii ka badan buu noqon jiray hadda waa mufrad alfaadimaad haddaad inantaada ula baxdo ama alhindaad haddaad inantaada ula baxdo waa mufradoo dee magacan waxaad uga jeedaa inantaaduna waa inan qura mufrad weeyi isagoo magacani mufrad ah ayuu mulxaq noqonayaa jamaca mu'anasu saalim la ilxaaqinayo oo xagga icraabka laga ilxaaqinayo markaad jeray nasbinayso waxaad ku nasbini kasro kasrahaasina fatxu wakiil ka yahay sidoo kale marka la jerayana kasraa lagu jeri marka la rafcinayana damaa lagu rafcin labadaa qodoba mulxaqa ayay ku jiraan ulaatu iyo wax kastoo magac laga dhigay waxa magaca laga dhigay sheekhu tusaalu soo qaatay adricaad oo ereygan adricaadihi jamac buu ahaa adricatin oo diraac mufradkiisu ahaa ayaa lagu sii jamciyey adruc baa lagu jamciyey adruc ayaa adricaad lagu jamciyey adruc marka adricaad lagu jamciyo ee afcilaad lagu jamciyo ama adrica markii adricaad lagu jamciyo waxaynu arkaynaa ee haddana isagoo jamac mu'anasu saalima meel magac looga dhigo magaalo ah mufrad buu iska noqonayaa ilin magaaladan ku dhacayaaye carafaad baa lamida markaa carafaadna waa xukunkan oo kaleo meel bay magac u tahay labadaa mulxaq oo jamcu uu leeyahay ayuu sheekhu soo qaatay mas'aladan marka laysku geeyo labada beyd 9 icraabood ayay ka hadlayaan 9 icraabood rafcaha waa laga aamusay oo 3 noqonaya jarkii oo 3 ah iyo nasbihii oo 3 ah ayaa manduuq markaa noqday jar iyo nasbo oo mid kastiba 3 ah ayaa manduuq ah 6 mas'ale ayay labada beyd ka hadlayaan 3 su'aalood oo rafcaha ana waa laga aamusay jamaca mu'anasu saalim rafcihiisa sheekhu halkan kagama hadale dee farfac bidamintii horaa lagu daystay ulaatu oo mulxaqa rafcihiisana farfac bidamintii horaa lagu daystay wax kastoo magac laga dhigo oo adricaad aynu ka soo qaadanay rafcihiisana farfac bidamintii horaa lagu daystay 3daa xaggaa hore ayaa looga aamusay 6da soo hadhayna halkanay manduuq ku yihiin labada beyd markaynu isku geyno kadaakan waxaa lamida ulaatu ereyga ulaatu ah ayaa lamida waladii kiibaa lamidana waa la odhan karaayo waladiida xagga hore lagu cadfo waxaa kaloon samayn karnaa waladiida intaan mubtade ka dhigno ayaynu khabarkiisana ka dhigaynaa daa fiihi daa aydan qubila jumlada daa aydan qubila ah ayaynu khabar uga dhigi karnaayoo xagga dambe dhacaysa labada wejba waynu qaadan karnaa kadaakan waxaa lamida ulaatu ereyga ulaatu abaa lamida waladii kii qad jucila laga yeelay isman ismi iyo magac laga yeelay isman limufradin baa looga yeelay ama limuhanan baa looga yeelay lijamcin marka horeba dee magac bay u ahayde kaasi naqli ma gelayo haddii lijamcin ay magac u tahay manquul ma aha waa limufradin ama limuhanan waladii ka qad jucila laga yeelay isman laga yeelay ka adricaatin oo kale weeyaane fiihi dhexdiisa daakan ayaa aydan sidoo kale qubila la aqbalay daakan ismu ishaaraha daa'ihi wuxuu ku dhacayaa waa nasbintii kasraha lagu nasbinayey kolkaa kanoo kale waa la aqbalay oo kasrihii ayaa sidii oo kale loogu nasbini buu ku leeyahy oo kasrihii ayaa calaamatu nasba u noqonaya niyaabatan can ilfatxa ah halkaana labadaa mas'alo ayuu sheekhu kaga baxay walow madaahibba ay mas'aladan ku jiraan waxaad odhanaysaa adricaad ra'aytu adricaati marartu biadricaati oo ragga qaarkood waxay u qaateen inaan la tanwiininayn oo waa yujaru bilkasra wa yuzaalu minhu tanwiin bay yidhaahdeen yujaru bilkasra wa yuzaalu minhu tanwiin saasay u qaateen qolooyinka qaarkoodna waxay yidhaahdeen war sidaa maahee
waa la yska kasrin lagana xadfi maayo tanwiintii hore oo haddii la rafcinayana haadihi adricaatun baad odhan haddii la nasbinayana ra'aytu adricaatin baad odhan haddii la jerayana marartu biadricaatin tanwiintii waa qaadanaya madhabkaasi waa madhabka saxiixa ah ee in tanwiinta aan laga xadfaynin ah oo talow xadafka tanwiinta maxaa keenay ilan marka horeba tanwiin wuu iska sitay ereyguye haddii adricaad calam laga dhigay oo shay dhadiga calam looga dhigay laba ciladood oo maalaayansarif ereyga ka dhigaya ama waajibinayay baa la hayaa waxa weeye calamnimadan iyo magacan laga dhigay ee calamnimada ah iyo ta'niifka dhadignimada waa laba cilo oo waajibinaya ereygu inuu maalaayansarif noqdo erey maalaayansarifana lama tanwiinin jirin haddaba madhabka saxiixii wuxuu ku leeyahay kol hadduu markiisa hore nakire iska ahaan jiray adricaad jamaca tanwiinna uu iska sidan jiray xikaayadii un ha loo qaato oo tanwiinta ha loo daayo oo isagoo tanwiintii iska sita ile waa muqaabalada tanwiintii tanwiinulmuqaabala la odhan jiray sidii isagoo u situun baa la yska qaadanaya lamana eegayo labada cilee ku kulmee calamiyada iyo ta'niifka ah lama eegayo oo dee calamiyadu waa caarid asal bayna ahayn oo asalkii ereygani nakire jamaca buu iska ahaa qolooyinka kalena waxay leeyihiin war maye waa la rafcini isagoo bilaa damaa lagu rafcin oo waxa lagu nasbini oo lagu jeri kasro tanwiintana looma ogola madhab baa sidaa leh haadihi adricaatu ra'aytu adricaati marartu biadricaati isagoo bilaa tanwiina ayaad la iman qolooyinka qaarkoodna waxay yidhaahdeen war waa la rafciniyo damaa lagu rafcin waana la nasbini waana la jeri oo fatxaa lagu jeri qoladii hore waxay yidhahdeen kasraa lagu jerayaa ma og tahay qoladanina waxay yidhahdeen maalaayansarif baynu ka dhigaynaa maalaayansarifka eeg jamicii mu'anasu saalimnimo wuu ka baxay oo maalaayansarifnimo adricaadkani u baxay bay yidhaahdeen adricaadkana maalaayansarifnimo u baxay u fiirso maalaayansarifnimo u baxay oo mar hadduu adricaad jamac mu'anasu saalim xeerkiisa qaadanayey oo marka la jerayey kasre lagu jerayey marka la nasbinayeyna kasre lagu nasbinayey labada jeerba hadda haddii inan magac looga dhigo adricaad ama magaalaba magac looga dhigay maalaayansarif buu noqday oo waxay ku leeyihiin tanwiintana ha loo diido kasrana yaan lagu jerine ha la qaata maxay ha la qaata fatxo maalaayansarifka wixii lagu nasbin jiray lagu jeri jiray sheekheennu saddexdaa madhabka kitaabkiisa ka cadi waa madhabka saxiix ee madhabka koobaad kow wuxuu keenay ishaaro wuxuu yidhi ka adricaatin lafdigan isagoo tanwiinsan buu meesha keenay inaan tanwiinta laga jerayn buu ku ishaaraya halkaa fiihi daa aydan qubil daada ishaaradan uu bixiyeyna wuxuu kuugu ishaaraya inuu xukunku noqonayo yugsaru fi ljari wa fi nasbi yugsaru fi ljari wa fi nasbi labadaba waa la kasrin labadii madhab ee kale waa diiday madhabka saxiixaa buu ku socdaa kadaakan waxaa lamida ulaatu ereyga ulaatu abaa lamida waladii ka qad jucila laga yeelay isman ismi laga yeelay ka adricaatin oo kaleba weeyaane fiihi dhexdiisa daa kan baa aydan ee qubila la aqbalay icraabkan aynu hadda uun soo marnay waa la aqbalay buu sheekhu ku yidhi oo icraabkaa un baad u qaadanayood icraabi beydkaa haddaan icraabkiisa yala eegno ereyga kadaa'ihi waa jaar iyo majruur waana khabar qadimay ulaatuna waa mubtade mu'akhar ah waladii isman qad jucil waladii waa mubtade waana ismi mawsuul qad jucila waa siladii waa ficil majhuul ah naa'ibu jucila laba mafcuul bay qaadan jirtaye naa'ibu faacilku waa mafcuulu awal huwa oo ladiiga u noqonaya mafcuulu haanigana waa la qadimay oo isman buu noqday ismantaasi maxay jucilo uga soo qadintay ilayn qad bay wadataaye waa daruuratu shicir baad odhanaysaa haddaba jumlada qad juciliihi laa maxalla lahaa min alicraab silatu ladii wey lafdiga aladii asiladeedii qaacidadiina waxay ahayd ismulmawsuuli maca silatihi fii quwati lmushtaq wuxuu noqonayaa taqdiirtu walmajcuulu isman walmajcuulu ka laga yeelay isman ismi ka laga yeelay ka adricaatin oo kaleba weeyaane adricaatin waa jaar iyo majruur kaafku waa xaraf jaar adricaatinna waa ismi majruur ah jaar iyo majruurkani waa fii maxalli rafcin khabarun limubtada'in maxduufin taqdiiruhu wadaalika ka adricaatin daalika ayaa meesha qadaran oo mubtada'a adricaatinna mubtadahaasay khabar u tahay daadu waa mubtade kale
aydan waa masderkii aada ya'iidu aydan la odhan jiray qubila waa ficil majhuula naa'ibu faacilku waa huwa oo daa buu u noqonayaa jumlada qubila ee majhuulki ihi waa fii maxalli rafcin khabarulmubtade oo daa'a caa'idkii oo daa'a raabidkiina waa qubilo naa'ibu faacilkeega huwoodoo daada u noqonaya jumlada daa'ihi iyadoo kubra'a eeg darafka dambe qubilo ana suqro ka ah ayay dhinaca kubradi ihi fii maxalli rafcin noqotay khabaru alladii ladiiga khabarkeegii ayay noqotay oo haddana suqray noqotay ereyga haddaba halkan waxaa isla yaal saddex jumlo waa kubraa faqad iyo suqraa faqad iyo kubraa biictibaarin wa suqraa biictibaarin waxaa la yidhaahdaa ereyga waladii ihi waa kubraa faqad jumladiisu waa kubro uun ereyga qubiliihina waa suqraa faqad waa jumlo suqro ahuun ereyga daa'ihina waxay noqonaysaa kubraa bay noqon biictibaari qubila marka la eego waa kubraa wa suqraa bay noqoni biictibaari ladiiga haddii la eegana suqray noqon daadu kolkaa laba ictibaarood bay leedahoo kubro iyo suqro labadaba way leedahay ereyga daa'ihi jumlada kubrada la yidhaah waxaa laga yaabaa ardaydu dee jumalka inayna aad u akhriyin jumlatulkubraa haddaad maqasho waa jumlada khabarkeegu uu jumlo yahay jumlada khabarke waladiiga haddaba muna khabarkiisu jumlo ahayn mee khabarkiisa waladiigu waa jumlada daa ee ka dambe waa kubra un ladiigu jumladaasi waa kubra un jumlada suqrada la yidhaahdaana waa jumladu iyada khabarka noqotay jumladu hadday iyadu khabar tahayba oo mubtade hore ay khabar u tahay suqray noqon haddaba ereyga qubiliihi iyadoo jumlaa miyayna khabar ahayn oo yay khabar u tahay daada dee waa suqra un qubiladu ilin khabar bay noqotaye haddaba jumladan daadi ihi haddii xagga qubilo la eego waa kubro oo khabarkeegii baa jumlo ah oo dee qubilo ah haddii xagga ladiiga hore la eegana iyadaa khabaroo waa suqro kolkaa laba daraf laba magac ayay jumlada daadu iska wadataa beydka markaynu eegno daadaa haddaba ladiiga khabarka u noqotay caa'idkiina waa fiihi jaariya majruurka ku jira ayuu noqonayaa waanan soo marnay kan oo kale oo jumla ficliya oo qubiliihi daada oo mubtadaha ah kama hormari karto oo iyadoo caamiloo fiihida ku camal falaysa sideebay fiihidu daada uga hormartay waynu soo xallinay maynaan soo xallinintaa kitaabka bilowgiisii baynu ku soo xallinay kadaakan waxaa lamida ulaatu ereyga ulaatu abaa lamida waladii ka qad jucila laga yeelay isman laga yeelay wadaalika kaasi ka adricaatin oo kale weeyaane fiihi dhexdiisa daakan baa aydan sidoo kale qubila la aqbalay waa la aqbalay buu ku yidhi sheekhu halkaa ayuu kaga baxay jamicii mu'anahu saalim ama maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn wixii loo yaqaanay ayuu bartaa kaga baxay wajura bilfatxati maa laa yansarif maa lam yudaf aw yaku bacda alradif maa laa yansarifkii ayuu doonayaa halkan inuu galo maa laa yansarifku waxa weeye faraca shanaad ee sidaynu ognahay xaraka ay xarako wakiil ka noqonayso ama asmaada oo 5 ahayd iyo ficilada oo 2 ahaa 7 oo aynu ogeyn inay ahaayeen baababkii faraca ahaa ayaa 5 ismi kii u dambeeyey way maa laa yansarifku oo 5 ismi 3 xaraf baa xarako wakiil ka ahaa 3dii hore labada dambana xarako wakiil ka ahayd labadii xarakada wakiilka ka jamac mu'annas saalim baynu qaadanay maa laa yansarif baa inoo dhiman maa laa yansarif oo kelidii 2 qaybood noqon kara maa laa yansarif wuxuu noqon karaa mufrad maa laa yansarifa sida marartu bifaatimata oo kale waxaa kaluu noqon karaa jamcu tagsiir maa laa yansarifa sida marartu biculamaaa oo kale biculamaaa maa laa yansarif oo 2 qaybood ka kooban mufrad iyo jamcu tagsiir ka kooban baabkaasi naa'ib weeyi oo icraabkiisu niyaaba galaysa niyaabadu haddaba rafcaha ma gasho xilliga la rafcinayo dama looga baahnaayo damadii baa la keeni nasbahana ma gasho oo xilliga la nasbinayo fatxa looga baahnaayo fatxadii waa helaya laakiin jerka ayuu galaa oo xilliga la jerayo ayaa kasrihii laga dayni oo fatxa la geyni labadan baab waxaa la isku xijisiiyey icraabkay kala amaahdeen baa la yidhaah icraabka way kala amaahdeen maa laa yansarifka marka la jerayo maxaynu ku jirnay hal la jiro markaynu maxaa lagu jerayaa fatxa lagu jerayaa jamac mu'annahu saalimna hal la nasbiyo markaynu nahay maxaa lagu nasbiyey kasra lagu nasbiyey kolka eeg maadaamoo nasbihii uu kasro noqday kanna jerkiisii baa maxay noqday ayaa fatxa noqday way kala amaahdeen baa la yidhaahdaa markaa wajura waa la jeray
mise wajurra jar baynu nidhaahnaa labada wejiba sidan oo kaluun bay noqonayaan wajurra jar bilfatxati fatxa ku jar maaka laa yansarifu aan munsarifka ahayn ee maa laa yansarifka ah fatxaa lagu jari maa lam yudaf inta aan la idaafayn oon mudaaf laga dhigin ow yaku amase uuna ahayn radifa mid raacay oo dhacay ama fangalay bacda al dabadeed mid dhacay intuuna ahayn ama fangalay halkan sheekhu wuxuu inoo sheegay maa laa yansarifkii oo laba qaybood ah waa jamcu tagsiir maa laa yansarifa iyo mufrad maa laa yansarifa icraabka faraca ihi ma rafcaha ma nasbaha ma jerka saddexda ayaa faraca jerka oo qura ayaa faraca maa laa yansarifka ayaa faraca baynu nidhi jerka oo xaraka wakiil ka noqotay waayo in kasre lagu jiray ahayd fatxa lagu jiro fatxadaasaa kasradii wakiilka ah xaraka baabkaas oo qura waa jerka oo qura faraca sidaa darteed haddaba rafcaha sheekhu waxba sheegi maayo uu iskaga aamusi oo uu ka aamusay maahe waan soo sheegnay wey qaacido muhiim uu inoo soo dhigay maxay ahayd qaacidadaasi farfac bidammin halkaasuu ku jiraa maa laa yansarifka rafcihiisu qaacidada farfac bidammin la yidhaah ayuu ku jiraa waa qaacido muhiima farfac bidammin marka laga hadlayo culima nasbihiisuna halkay ku jirtaa wansiban fadxanta ayuu wansibanna fadxan buu ku jiraa oo waa qaacido iyaduna wansibanna fadxantaasi waa qaacido laakiin jerkii wajurro kasran ma odhan karno wajurro kasran oo jerku waa fatxo waa kii ina soo yidhi wax kastoo intaa khilaafaa waa maxay ayuu ina soo yidhi muxuu markuu xaggan hore soo marayey wuxuu yidhi wagayru maa dukira yanuubu qaacidadaasaan sharxaynaa haddaba sidaba cashiradan maalmahan aynu wadnaa yay ka hoos baxayaan wagayru maa dukira yanuubu qaacidadaa tafaasiisheedii weeye wagayru maa dukira yanuubudii weeye wixii la soo sheegay kaa kasraha lagu jerayo kayrkii waa naa'ib oo dee waa maa laa yansarifkiiba kasre laguma jirin fatxa lagu jiray de haddaba aynu tafsiilino wajurro jar bilfatxati fatxa ku jar maa kii jar laa yansarifu aan sarfoomaynin ka aan sarfoomayn baa la jerayaa sarfigu waa tanwiinta ka aan tanwiinta aqbalaynin fatxaa lagu jari uu ka baxayba sheekhu intaasaa qaacido muhiima ah ereyga wajurro ah talow ilayn marka majhuulkana jurra baa la odhan jiray wajurra waa la jiray marka mataqaanaa laga hadlayo iisoo sheeg amarkana jurro un baa la odhan jiray ereygan jurro ah ma amar baynu ka dhignaa mise maadi majhuulaynu ka dhignaa labaduba waa suurtagal inaad tidhaa wajurra waa la jeray bilfatxati fatxaa lagu jeray inaad tidhaa iyo inaad amar ka dhigtoo tidhaa wajurro jar bilfatxati fatxa ku jar maaka laa yansarifu aan sarfoomaynin kamaa laa yansarifka ajar ama waa la jeray labaduba waa mulaa'im ama waa munaasib haddii amar ay tahay wajurra ra'da waa la fadxin wajurru ra'da waa la godi karaa wajurri ra'da waa la kasrin karaa wajurra wajurri wajurru saddexdaa kaa doonto akhri wajurru bilfatxati maa laa yansarif wajurru khada ma aha wajurru haddaad tidhaa wajurri haddaad tidhaana khada ma aha wajurri bilfatxati maa laa yansarif ma lam yudaf aw yaku bacda alradif haddii wajurro aad tidhahdana waa sax eeg inta badan dad baa isweydiiya ramadaantii waa tan inoo soo dhowey ducooyinka qaar la akriyo allaahuma aciza alislaama walmuslimiin allaahuma aciza alislaama bay culimada ducaynaysa qaarkood akhriyaan qaarkoodna waxay akhriyaan allaahuma acizi lislaama walmuslimiin acizi lislaama yaa saxan baa la odhanaya aciza iyo acizi waa mudaacaf oo labaduba waa sax allaahuma aciza alislaama inaad tidhaayood fadxisaa waa kuu sax allaahuma acizi lislaama inaad tidhaayood kasrisaana waa kuu sax labada midna khada ma aha laakiin halkaas oo kale damadii baa mamnuuca allaahuma acizu lislaama ma odhan kartid allaahuma acizu lislaama iyadu waa khada weeyaan godaalkaasaa khalada wajurra saddex baa ku bannaan wajurra wajurri wajurru haddaba inaynu amar ka dhigno ayaa hadda meesha munaasib u ah amar inaynu amar ka dhigno ayaa culima munaasib u ahoo halkeennan ku habboon sababta ay munaasib u tahayna waa maxay wajurra inaynu munaasibka aynu xoojinno oo maxaa munaasibka talow xoojinaya beydka soo socda sheekhu muxuu yidhi
beydka soo socda muxuu odhan doonaa muxuu ka bilaabi doonaa wajcal mayna amar cad ahayn wajcal dee waxa la isku ogay waxyaabaha la isku cadfee isku agdhodhowi waa isla amar ama isla maadi weeyi kolkaa wajcal beydkaa soo socdaa maadaamuu amar ka bilowday waxay culimmadu yidhaahdeen wajurrada inaynu amar ku macnayno ayaa munaasib ah ama mulaa'im ah taa ayaa meesha ku habboon waa beydka soo socdee beydkii inaga tegay een soo marnay haddaynu eegno majhuulka ayaa iyadana u habboon wajurradan beydkii aan soo dhaafnay haddaynu eegno majhuul inaynu ka dhigna habboon oo muxuu ahaa beydkaan soo dhaafnay kadaa ulaatu waladi isman qad jucila miyayna majhuul ahayn waxay culimmadu dee ficilkana lagu doodayaa waxaa lagu kala bixi karaa ficillada ka agdhodhow beydka soo socda haddii la eego amar weeyaan oo amarkaa ku habboon wajurro jer in lagu yidhaah weeye beydka maxaanku idhaahdaa aynu soo marnay ee xagga hore haddii la eegana waa in majhuul laga dhigo oo jucilo qad jucilo waa in la qaato oo majhuul aynu ka dhigno ilain waa majhuulba hadda sidaa halkan inoo qoran wajurro jer ama wajurra waa la jeray bilfatxati fatxa ku jer maaka laa yansarifu aan sarfoomaynin ereyga aan sarfoomayn ee maa laa yansarifka ah fatxaa lagu jerayaa maa laa yansarifkii fatxaa degaysa markaa wajurra bilfatxati maa laa yansarifka fatxa ha degto maa lam yudaf inta aan la idaafayn een mudaaf laga dhigin waa haddaan auna mudaaf ahayn buu ku yidhi ow yaku amase uuna ahayn radifa mid raacay oo fangalay bacda al dabadeed fangalay waxaynu leenahay haddii maalaayansarifka al ay gasho fatxo lagu jeri maaye kasrihii baa u soo noqoni oo maxaa la odhan hadday al gasho walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi ereyga fi lmasaajidi waa jamcu tagsiir ah al baa gashay isagoo maalaayansarif ahaa waxaa lagu jerayaa kasro fi lmasaajidi sidoo kale haddii mudaaf laga dhigo isagana fatxo lagu jeri maaye oo wajurra bilfatxati ma ahee wajurra bilkasrati buu noqon asalkiibuu u soo noqon oo asalkii hore wajurro kasrantii uuna soo yidhi qaacidadiibuu dib ugu laabmaya hadduu mudaaf noqdo sida ilaahayba aayadda qur'aanka uu ku yidhi fii axsani taqwiimin ereyga axsani waa maalaayansarif waxay ahayd in lagu jero fatxo laakiin kasraa layskaga jeray oo asalkiibuu ku yimid sababtuna mudaaf buu noqday asha iyo idaafaduba waxay la dagaalamaan fatxa ku jeridda way la dagaalamaan sababtuna waxa weeyi ereyga fatxaha lagu jerayaa waa erey ficil shabbahay ficil buu shabbaho laba dhinac buu ka shabbahay idaafada iyo ashuna waa min khasaa'is ilasmaa oo calaamaadka ismigay ku jiraan kol haddii ereygii ficilka shabbahay al uu qaato shabihii ficilkaa daciifay kol hadduu ereygii ficilka shabbahay mudaaf uu noqdo calaamad ismi baa la helay oo shabihii baa daciifay kadibna waxaynu odhanaynaa war yaan fatxa lagu jerine ilan ficilkaa laga ilaalin jiray kasrada yaan fatxa lagu jerine shabihii wuu daciifaye kasrihii asalkaha dib ha ugu soo noqdo wajurro jer bilfatxati fatxa ku jer maaka laa yansarifu aan sarfoomaynin ereyga maa laa yansarifka ah fatxa inoogu jer waa labadiisii qayboodba maxaynu odhanaynaa marartu bifaatimata faatimata fatxadaasaa lagu jerayaa waxaa kaloon isticmaalaynaa marartu biculamaa'a culamaa'ana fatxahaasaa lagu jerayaa midna waa jamc maa laa yansarifa midna waa mufrad maa laa yansarifa maanica faatimo maa laa yansarifka ka dhigay waa calamiyada iyo ta'niiska lafdiga iyo macnahaba ah lafdi iyo macnaba faatime dhadig bay ka tahay ta'niiska lafdiga iyo macnahaba ah iyo dhadi iyo maxaanku dhaha calamnimada weeyi marartu biculamaa'a waa maa laa yansarif maanica maa laa yansarifka ka dhigay waa cilo waaxida taquumu maqaama alcilatayn baa la yidhaahdaa hal cilo oo laba cilo booskooga buuxinaysa waa alifu ta'niis almamduuda alifkaa yaree alifu ta'niiska ah ee mamduudada ee biculamaa'a ku jira ayaa maanica oo maa laa yansarif ka dhigay haddii mudaaf laga dhigo ama alba uu daba dhaco fatxa lagu jeri maayo oo haddaba talow maxaa lagu jeri ilan sheekhu fatxa lagu jeri maayo uun buu yidhi talow maxaa lagu jeri taasaan isweydiinaynaa kol haddii fatxa lagu jeri waayey dee asalkiibuu dib ugu noqday wajurro kasranti wey wajurro kasran cumuumkii wajurra kasran buu inoo soo gelayaa markaa wajurro jer ama wajurra waa la jeray bilfatxati fatxa ku jer
maaka laa yansarifu aan sarfoomaynin maa lam yudaf inta aan la idaafayn ow yaku amase uuna ahayn radifa mid fangalay ama raacay bacda al dabadeed mid raacay intuuna ahayn beydkan haddaynu icraabno jura waa ficlu amar ama waa ficil majhuula bilfadxati jaar iyo majruurku juro ayuu ku tacalluqayaa maadaasi ama waa fii maxalli rafcin ama waa fii maxalli nasbin labada maxalba way qaadan kartaa fii maxalli rafcin iyo fii maxalli nasbin haddii jurada majhuul laga dhigo maadu waa fii maxalli rafcin naa'ibu faacil haddii jurada amar laga dhigo maadu waa fii maxalli nasbin mafcuulun bihi haddaba maada afar weji baa ku bannaan iyadoo nakiro mawsuufa oo laba icraabood sidata iyo iyadoo ismi mawsuul ah oo laba icraabood sidata afar icraabood ayaa ereyga maa ah inoogu bannaan laa yansarifu laadu waa naafiyo naahiye maaha yansarifu waa ficil mudaaric oo marfuuca litajarudihi min annaasibi waaljaazim maa laa yansarifu faacilku waa damiir mustatir oo huwa ah oo maaga u noqonaya waana caa'idkii weeyi maaga u lahaa laa yansarif waa siladii iyo caa'idkii haddii maada aynu ka dhigno ismi mawsuul ama waa sifo haddaynu maada ka dhigno nakira mawsuufo ah jumlada laa yansarifu waxa weeye laba jeer maxal icraabood bay yeelan mar waa fii maxalli rafcin haddii maada naa'ibu faacil laga dhigo nakiro mawsuufo ana ay tahay marna waa fii maxalli nasbin haddii maada laga dhigo nakiro mawsuufoa juradana ficlu amar ay taho maadu ay mafcuulun bihi u noqonayso laa yansarifu ama fii maxalli rafcin ama fii maxalli nasbin laba jeerna maxal icraabeed ma leh waa marka maada ismi mawsuul laga dhigo iyadoo naa'ibu faacila ama maada ismi mawsuul laga dhigo iyadoo mafcuulun bihiya haddaba haddii ismi mawsuul laga dhigo qaacidadii caanka ahayd bay soo hoos gelaysaa ee la odhan jiray ismu lmawsuul maca silatihi fii quwati lmushtaq kama fi lqaacidati almuqarara wajura bilfatxati hayru lmunsarifi wajura bilfatxati hayru lmunsarifi markaa maad majhuul baan ka dhigaya hayru lmunsarifi markaan leeyahay ama wajura bilfatxati hayra almunsarifi markaana amar baan ka dhigaya maa lam yudaf intaan la idaafayn ow yaku ama uuna ahayn radifa mid raacay bacda al maadaasi waa masderiyadii lamtanina waa jaazimadii yudafna waa ficil mudaaric oo mabniyu lilmajhuula oo majzuuma lamtaa jasmisay calaamadiisiina waad aragtaa naa'ibu faacilku waa huwa ow yaku wuu ku cadfan yahay nuunkii baa la xadfay ilayn marka shuruudihii shanta ahaa uu dhammaystirto ama shuruudihii toddobada ahaa markuu dhammaystirto nuunka yaku waa la xadfi jiraye radifa waa ficil maadi waana faacilkeeguna huwa jumladaa radifa ah waa khabarka yaku weey yaku ismiga yakuna waa damiir mustatira bacda al waa daraf iyo oo mudaaf oo ashuna waa mudaafun ilayhi ismiya qasdu lafdi baa ku dhacay bacda al darafku wuxuu ku tacalluqayaa radifa halkaa ayuu in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam